waxa u dhaxeeyay nebi aadam aabihii basharka iyo nebi nuux 10 qarni iyadoo dadkuna dhammaantood ilaahay kaliya caabudi jireen una gaar yeeli jireen tawxiidka manuusan jirin shirkiga waqtigaas ilaa markii dambe muddo kadib ay soo baxeen 5 nin oo saalixiin ah kuwaasoo dadka ugu yeeri jiray cibaadada iyo tawxiidka rabbi kuna faafin jiray caamada dhexdooda akhlaaqda wanaagsan iyagoo lahaa dad badan oo raacsan ilaa markii dambe sidii sanadba sanad uga daba tegay ay dhinteen dhammaantood sidaa darteed waxa dadkii ku soo dhacday inay asnaam sameeyaan si ay dadkaas wanaagsan ugu xasuustaan ilaa markii dambe uu shaydaan ka faa'iidaystay sababna uu noqday halaaga in badan oo ka mid ah dadkii aqoontoodu gaabnayd tani waa qisada wad suwaac yacuuq yaquuth iyo nasr qisada raggii iyo sanamyadii ay caabudeen qoomkii nebi nuux calayhi salaam nebi aadam calayhi salaam wuxuu dhalay wiilal fara badan oo ay ugu caansanaayeen haabiil qaabiil iyo shiith iyadoo intii kale oo dhan ay tarantoodu go'day shiithna uu noqday ka ay dadka dunida ku abtirsadaan sidii xuseen ibnu isxaaq ibnu jariir iyo dabari wuxuuna shiith dhalay wiil lagu magacaabo inoosha kaasoo ay tarantiisa ka mid ahaayeen matooshlah oo ahaa nebi nuux awowgii muddada 10 qarni ah ee u dhaxaysay nebi nuux iyo nebi aadam ayaa waqti aan la garanayn amintiisa kana horeysay waqtigii nebi nuux waxa soo baxay 5 nin oo wanaagsan oo cibaado iyo alla xusid badan waxayna lahaayeen kuwa iyaga ku dayda kuwaasoo dhulkana ku faafin jiray khayrka dadkana fari jiray acmaasha wanaagsan sidaa darteed dadku khilaafeen ahlu cilmigu asalkooda iyo samankay noolaayeen waxaana ibnu jariir alle raali ka noqday uu yidhi wad suwaac yacuuq yaquuth iyo nasr waxay ahaayeen dad wanaagsan oo ka mid ah qoomkii nebi aadam calayhi salaam waxayna lahaayeen dad raacsan oo ku dayda iyaga sida waafaqsan riwaayadda jariir waxa ku cad inay ahaayeen qoomkii nebi aadam calayhi salaam wuxuuna markaynu eegno u celinayaa inay ahaayeen qoom noolaa xilligii ka horeysay nebi nuux calayhi salaam wuuna sii waday hadalkiisa isagoo yidhi markii ay dhinteenna waxa ay yidhaahdeen dadkii raacsanaa raggaas wanaagsan haddii aynu sawirno si markaynu aragno iyaga ugu xasuusanno aynuna ugu degdegno cibaadada iyagoo markii dambena sameeyey sanamyo ay magacyadoodii u bixiyeen iyadoo jiilkaasi marka ay dhinteenna ay yimaadeen kuwii iyaga ka dambeeyey iyadoo intaa kadib ibliis waswaasiyey uuna yimi kaasoo ku yidhi aabayaashiin sanamyadeen waa ay caabudi jireen roobkana iyaga ayay weydiisan jireen iyadoo ilaahay u soo diray markii dambe nebi nuux calayhi salaam si ugu furay inay ilaahay u soo noqdaan isagana caabudaan waxayna iyagoo dhexdooda isu baaqay yidhaahdeen ha ka tegina ilaahyadiina hana ka tegina wad suwaac yacuuq yaquuth iyo nasri laakiin ibnu cabbaas ilaahay raali ka noqday wuxuu ku sheegay nimankaas inay ahaayeen rag wanaagsan oo noolaa waqtigii nebi nuux balse aan nooleen waqtigii nebi aadam calayhi salaam kadib markii ilaahay oofsaday ayaa shaydaankii waswaasiyey qoomkoodiina wuxuu ku yidhi waxaad samaysaan taalooyin waxaadna dhigtaan meelahay ku cibaadaysan jireen kuna magacaabo magacyadooda si aad ugu xasuusataan oo aydan weligiin u ilaawin iyagoo sameeyey 5 sanam ayna ku magacaabeen magacyadoodii ilaa markii dambe ay wada dhinteen qoomkii sanamyadaas sameeyey iyadoo cilmigiina laabaha laga tiray oo uu jahligii faafay ibliis ayaana u yimi ubadkoodii wuxuuna ku yidhi aabayaashiin way dul ictikaafi jireen sanamyadan wayna caabudi jireen amintaa wixii ka dambeeyeyna waxaa soo bilowday caabudida sanamyada ee dhulka dushiisa kuwaasoo lagu magacaabay magacyada dad wanaagsan ilaa uu ilaahay nebi nuux calayhi salaam uu soo diray uuna ugu baaqay inay ilaahay u laabtaan iyadoo in yar ay rumaysay ayna badidoodii diideen inay rumeeyaan iyadoo nebi nuuxna uu habaaray iyadoo ilaahayna ku halaagay duufaankii weynaa kaas oo aan dhulka kaga tegin gaaladii iyadoo ilaahayna badbaadiyey mu'miniintii inagoo barnaamij ka diyaarnay qaabkii loo halaagay anoo linkigana xagga hoose soo dhigi doona waxaana halkaas ku soo gabagabowday caabudida sanamyadaas ilaa markii dambe ay carabi caabudeen iyadoo markii nebiguba ka furtayna uu ka daahiriyey jasiiradda carabta wixii sanamyo yaalay kuwaasoo ay caabudi jireen qabiilooyinka carbeed iyadoo ay weli sanam caabudidu ka jirto meelo dunida ka mid ah taasi waxay ahayd qisada raggii wanaagsanaa ee ay caabudeen qoomkii nebi nuux calayhi salaam